dhicin oo aanu isbedelin maalin wuxuu igu yiri waxaan rabaa inaan kuu qaado sharci aan kuu xareeyo markaasaan ku dhaw hadii adiga ka soo gooday inagu waan isqabnaa laakiin sharciga islaamka isku qabnaa kii dawladdan iskuma qabno hadii ay adiga ka soo goodo waad ii qaadi kartaa hadii aanay ka soo gooyna ilaahay saaqadiisan markasta sugay waayo igu yiri meeshii buu igeeyo sawirro iga soo qaaday meel buu lacag bixiyo sharci buu ii xiray meeshii baan joogaa markaan joogo sharcigiina uu ii xareysan yahay markaan waxaan ku fikirayaa ma tagtaa meelaha santarada oo dib ma isku dhiibtaa oo ma codsataa sharci isaguna sharci buu ii soo xareeyay deedna waxaa dhacday inay walaashay gabadhii ay ku tirmaye waxaad samaysaa halkaagaa iska joog anaa faamilka la soo hadlaya qolkan aad degan tahay haddii aanay dib u arkayn waxaan rabaa inaan qolkaa kuu sharaxo oo aad qolkaa ku dhasho gabadhii bay la soo hadashay gabadhii waxay ku tiri waxaan doonayaa inaan qolka haddii aad ka maarmayso aanu sharaxo halkan ku dhasho maadaama uu sharci u xireeyay hadda inaanay isdhiibin oo aanay dee laba sharci in laysku dul furo macquul ma noqonayso gabadhii walaashay hayana may odhan mayana may odhan waxay samaysay aniga inta ii timay igu tiri walaashaa waxay igu tiri shalayna anaa kuu keenay aniga faamilkaygaa tahay oo reerkay qabaa tahay gabadhan guriga ka saar waana beenteed aniga culays igumaad hayseen laakiin walaasha ayaa saatir لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم waxaan ahay gabadh stress ku furan yahay gurigeedii shalay ee dhistay intaasoo dhibaato intaasoo aflagaada kala kulantay haddana warqadii si yaroo fudud loo soo siiyey haddana ilaa wadankii dhibaato uun daba taagnayd habeenkiisaan u fikiraya waagu igu dulcadaadaa gobolkuna igu dhaca cunto ma cuno aad baan u xanuunsaday oo uurka dadka aadka ugu xanuunsada ee markay dhulka dhagala baan ahay walaashii man markaa colaad u qaaday aan teleefonkii ka qaban waayey oo waxay ii noqotay gabadhu ii sheegaysay anigoon hubsan run markaa hadal yaroo horoo naga dhexeeyeyna way iiga sii faa'iidaysay anigoo noloshii ku jira oon sidii u silicsanahay oo gabadhii wejiga ii bedelayso oo meelaan taga aanan garanayn ayaa islaantii ninkii hore iskaaya bartay keen hadda ilmaha caloosha ku soo dhalay baa ii timi waxay igu tiri wiilkii uu khaldamay khaladkiisuna uu ka soo noqday adigu gabadh fiican baa tahay waxaan doonaynaa inaan aad wiilkiis ku noqotaa muku noqon lahaydeen hablokii ilmaha maan dhalintii ها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هبلها هنا عادي فاطمة بلوغا مكو نقول يا أرتم مسكوا ما نقول إسلام ما كان أقبل يا مسك ما أقبل كسا بقول كوساطور ويكون نقول إسا يكون نقول إسا وكل عداء قبل ده سوكون نقول إسا ذيك ما هلكين قبل ده سوكون نقول إسا أنا ويكون نقول إسا ما يدي قصر كان تابت كمان نقول إسا أغلى بنقدوه وهنت أنا ويكون نقول إسا ما تابت هذا نقعنا في هذا المدة ونكي واشمانك أها ilahay ayaa guriga kuu yimaada ilahay ima dhaweysa dhasha isbaara u dhigtay markii uurkaan u qaadayna yiri ilmahan ma baan dhalin waa inaan DNA ka qaada waa ninkii sidii ahaa waa gartaa islaanti way iitim waxay igu tiri uu khaldamay bini'aadamku khaladka uu ka dhacaa waxa weeyaan hadda uu ka soo noqday uu waay arkay dhibaatadii uu joojinaya waa inaan xaafadaadii kugu celiyo waa inaad ogolaato waa inaad isku noqotaan waa inuu rajacta ku yidhaahdo haye baan ku idhi yaa qabalka baan ku idhi oo ninkayga jiita habliha aaway jiita oo ninkaygii iskaga noqday gurigii buu igey hadda haddana adkaanaysaa mar afaraad iyo mar shanaad adkaatay baqri ka dambeelasha xidda hadda caadi waad kaanaysaaba hadda caadi sheekadu hadda bilowta inankan intii aan ka soo maqnaa gabadh buu la saaxiibay Soomaaliyeed ah gabadhu gurigay ima jirtay waa gurigaygii anigu aan ii kareeyay ee aan gogladay ee alaabta taala kala bar anigu aan dhigtay aan sharaxday gabadh baaba shaambooyadeedii iyo kareemadeedii iyo kolgeedii ilkaha ku cadaynaysa wixii baa taalaayo furihii anigu aan haysan jireen iyada uu siiyo guriga waqtigeed doonto timaada waqtigeed doontana ka baxda oo isagu muxuu ku soo ceshtay markaa
wuxuu ii soo ceshaday waxbuu damacsan yahay hadda adkaatay marka haye dabeedna markuu gurigii keenay wuxuu igu yidhi markaad iga tagtay ood cidlaysay gabadh baan bartay baan la sheekaystay furihii gurigan ayadaa haysata laakiin furahana waan ka soo qaadayaa waana joojinayaa maadaama adigu ii soo noqotay acuudu billaahi min ashaytaani rajiim waa garta waayahay baan ku idhi isagoo saa ii ag fadhiya dad markii horena isguursaday nolol ka dhexaysay markii dambena heshiiyey jiidaha hore kasoo noqdaan saa isku ag fadhino ayuu gabadhii garaacay markaasuu ku yiri dhegeyso xaaskayga ay soo noqotay oon soo rajacsaday guriga joogta markaa waxaad samaysaa innagana aan saa ku kala hadhno furihii gurigana iike gabadhii way wada hadleeno hoos bay timi gabadhii markay xaggii hoose timi ayuu u baxay furihii kamuu soo qaadin wuxuu ku yidhi alaabtii guriga kuu taalan kuu soo ururinaya shaambooyadii iyo alaabtii isagoo u ururinaya ayay albaabkiis ka soo furtay markiiba uu ka horboodo wuxuu yiri guriga ay soo gelin oo guriga problem ka sameeyno alaabtiiba kaga horgeeyay marka waxay isku shiidayaan shaambooyadii kareemka duulaya iyada soo tuuraysa isagaa soo tuuraya waxay ciyaarayaan musaaraco maxay dee Faadmo maxaad ka hadlaysaa hadda guriga hortiisii albaabkiiba iska soo furtay isagoo alaabtii u soo ururinaya uu ka hortagay wuxuu yiri guriga ay soo gelin alaabtii ugu dhiibay bay ku soo shiidaysaa isna uu ku shiidaya guriga dhex joogaan marka ma ciyaarayaan soo isku dagaalayaan ma islaynayaan waxay leedahay saad naagta u soo ceshataa war saad naagta u soo mood gal qaali farxiye saad naagta u soo ceshataa war saad u samaysaa war bay leedahay way qaylinaysaa markii hore telefoonka xitaa saas u qaylinaysa gabadhaniba waxay ka xanaaqsan tahay way naagtan aad u soo celisay halkii bay shiideen adu musaaraco soo tuur ku celi dagaalka buuqa qaylada isla baxo oo furihii way diiday inay bixiso ma bixinayo tiri furaha kuma siinayo oo ii soo noqday wuxuu igu yiri furihii way diiday inay isiiso laakiin waxa jirta qof ay ka cabsato waxay ka cabsataa hooyadeed maadaama ay ka cabsato hooyadeed baan u tagayaa furaha iyada inooga soo qaadays oo furihii way diidayba gabadhu way diiday kuma siinayo ku tiri fura waaba imaan la aydee taas waa tuma magaceeda soo sheega anu magacan ogan ku tilmaamay markii waa ogahay magacaas oo garanaya waxa dhacday halkaa markay marayso furihii diiday uu yiri hooyadeed baan u tagayaa wuxuu ku yiri hooyadaa baan u tagayaa furaha iga kaasiyana saa tirmay hooyaday ha u tagina furaha iga soo doono furihii way soo dhiibtay furihii aa soo dhiibtay gabadhii ma hadhi doontaa mise ma hadhayso walla inaan intaas hadhayn bilay ku saa waxay samaysay gurigii markuu yimi oo aan xoogaa wada joogno ayaa waxaan maalintii dambe Snapchat-ka ku arkay gabadhii oo intay wada markaan ku idhaahdo walaal adeegii guriga uu ka dhamaaday dubka diirku iga dhigaya adeeg maxay ade adeeg fiican guriga ma yaalo waxaan ahay gabadh uur leh oo cuntadii aan karin karayn oo aan cunto cunayn oo amateedkii ka tegay oo stress ugu biiray oo soo ma aha inuu marbari kaxeeyo suuqa cunto iga soo siiyo ama takeaway iigu keeno oo ii soo adeego oo xitaa markaan karin karo ay ii kariyo inuu ii kariyo iska daa inuu takeaway iigu soo qaado ama cunto ii geeyo iska daayo haddaan idhaahdo guriga bal adeeg u soo iibi dubka diirku iga dhigay waxa maalintii dambe Snapchat-kan ku arkay Snapchat-kiisii weeye waxaan ku arkay gabadhii intuu qada bahalkeeyay qada saa u hortaalo uu qada geeyay oo la iskaga soo duubay oo gacmaha saa la isku haysto oo romantigii u dambeeyay la jilay waa isla gabadhii taada laga arkay walaalaha sanbacada gaari ma ka dhacday marna may waa gartaa taadna video telefoonka lan kaga duubo walaashay baan u diray walaashay markaan soo noqday wanagii colka ahayna isoo iga warwarshay isoo raadisay ii timi heshiinay gabadhii ogaaday inay been ii sheegaysay qofka kaliya aan haysta waa walaashay waanu duuba waanu diray waxa tir waxaan macquul ba ma waxaan arrin ma ahayn inuu adiga ku waalo ayuu ugu talagalay waa gartaa waxa dhacday muu iman maalintii uu arkay already inaan arkay awalba waxay ugu talagaleen inaan aniga alay tuso gurigii maalintii muu iman maalintii ku xigtay muu iman maalintii ku saddex ahayd buu yimi
waa gartaa markaan la hadlo ku waa maxay noloshani sidan waa maxay iyadaa soo dhigtay aniga maaha isnaamkayga xitaa iyadaa maamulayso hadalkii is dhaafdhaafiyo uu baxay snapchat-keeda maamulaysa taa macnaheedu waxa weeye xitaa aniga iyadaa maamusha ha hadda xaguu aaday demoy wuxuu u tegay walaashiis oo aanay wada hadli jirin oo magaalada deganeyd wuxuu ku yidhi maanta waxbaan kaaga socdaa inaad ii samayso maxaan kuu sameeyaa naagtan guriga joogta kaale iga soo saar ma adiga idinkaa dumar isla ahe kaale iga soo jii ma raba inay guriga ii joogte laa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcaliy alcadiim maca sonkor intaad bixi weyday hadda lagu saarayaa waxba waad fahmi weyday hablo soo jiita dee maydka guriga markaa aniguna kuma qorni isaguna kuma qorna isagu balaag listigu ku jiraa guri maba kiraysan karay walaalkiisaa kireeyey anigoo dhakhtar markaa ballan kale oo baxayoo raba inaan baxo oo aan u baxo dhakhtarkii ballantii aan lahaa ayaa albaabka laygu soo garaacay albaabkii markii laygu soo garaacay waa isaga iyo gabadhan markaa maan arkin hore umaan arkin oo reerkooda o dhan waa kuwii kala xajarnaa markaasaan ku iri salaamu calaykum calaykum assalaam markaasuu gabadhan waa walaashay markaasaan ku iri haa walaal soo dhawow soo fadhiiso markaasay ku tiri fadhiisan maayo waxaan ku idhi waxaan rabaa 2 qodob dantaada inaan kuu sheego gurigan ka soo bax soo dhaaf alaabtaada soo qaado soo bax boorsadaada soo qaado soo bax uu taagay isagii markaasaan ku iri maxaad ka wadaa guriga ka soo bax markaasay tiri gurigan adiguna ma lihid kuma qornid isaguna ma qorna isii waray adigu furaha igu soo wareeji waa waxay ku soo heshiiyeen furihii buu dhiibay markaasay tiri adiguna furaha igu soo wareeji igana soo bax la xawla walaa quwwata illaa billah markaasaan ku iri bixi maayo markaasay waxay garaacday kii guriga kireeyey bay garaacday markaasay tiri gurigii baan ku iri iga baxo marka waxay ku soo wada heshiiyeen guriga iga bax baan ku iri way diidantahay guriga inay ka baxda maxaa sameeyaa markaasuu yiri boolis u garaac booliska kaaga saaraya laakiin guriga kireeyey reerku markaa waxaan arkay inay ismadhaanto iyo dhasheed yihiin saddexduba isku caqli yihiin waxaan ku iri markaa walaal waxaad samaysaa gurigiina idinkaa iskale waana idinka baxayaa laakiin iminka ballan baan leeyahay dhakhtar baan u socdaa ilmaha jeekin lagu soo sameynaya markaan dhakhtarka ka imaado ayaan boorsadayda qaadanayaa lambarkaaga iyo qor furaha markaa meeshaan kuu dhigo ayaan kuu soo sheegaya markaan ka baxo markaasay istijiso waa hebay gu tiro lambarkiiba ii qorta way baxday dhakhtarkii markaan kasoo noqday baan walaasha weerar waxaan ku iri soo orod way soo oroday waxaan ku iri alaabta gurigan taalla oo dhan ayaan rabaa inaan qaato amadaa leh badh baan leeyahay badhna isagaa marka waxay samaysay markay ay baxday iyadu ayaa intaan taleefonka daba diraan ku iri walaal guriga waad iga saarteen walaalkaana warqadaydii iyo meherkaygii baan ku leeyahay maxaa xala hadalkii aanan dhammaynba uu la taagnaabo message ii soo dhacay waan ku furay i furtee meherkaygiina meher hadda ma hayno dee lacag hadda ma hayno okay waay markaan dhakhtarka ka imaado ayaan furaha idiin sheegayaa meeshaan idiin dhigay dhakhtarkii baan kasoo noqday walaashay baan la hadlay iyada ordaysay ii timiday alaabtii gurigii waxaanu ka dhignay aanay xabadi oolin oon alaabtii oo dhan baan rartay meherkii baad u qaadatay alaabtiiba ya alaabtii oo dhan markaan rartay oo aan meel kusoo xaraystay alaabtii hablo ma saxsantiin alaabta haddo soo tuugnimo weye ma tuugadba ma soo saxsantahay way saxsantahay waa fariid ya ma fariidba soo saxsantahay way saxsantahay way saxsantahay waa qosolka doqon waaye waa oohinta waxa dhacday alaabtii markaan rartay ayaan furihii meel u dhigay gabadhii baan la hadlay walaal gurigii waan ka qaatay dharkaygii alaabtaydii waxaad samaysaan furihiina halkaasaan kuu dhigay iyadoo ordaysay timi gurigiiba hadday saa usoo furtay gurigiiba alaab ma dhex taalo u qaawayay gurigii markaasay garaacday war naagtu alaabtiibay guratay isagoo ordayaa yimi kabash ma alaabtii bay guratay waa ka magaaladii oo dhan soo kiciyey naagtu alaabtaydii bay guratay naagta alaabta halayga soo reebo islaantii eedadii wiil magaalada joogay wixii buu saa usoo kiciyey
taleefankii baan ka garaacay buu naga soo garaacay alaabtaydii waxaan ku idhi alaabtaada meherkaygii soo dhiib alaabtana markaa waxaa la hadlaysa walaashay waxay ku tiri gabadha alaabta waa lagaaga soo celinaya xitaa tay iyadu lahayd meher bay kugu leedahay meherkeedii soo dhiib ma hayo anigu hadda meher taleefankii buu dhigo adduunkii oo dhan wuxuu mariyey walaasheed xitaa way cayday walaasheed way cayday iyadoo alaabtii bay iga guratay alaabtii halayga soo qaado wuu orday booliskii buu tegay booliskii wuxuu kasoo diiwaan geliyay inaan alaab ka xaday tuugnimo ha daba tuugad baa dadka qaar leeyihin ba tuugad bay soo qorayaan qaarna warqad ordaysa 4 nin meesha ku jira soo qoray warqad ordaysa ma tuugadan soo fariidi soo qora ragu miilkiina jiita alaabtiina idinka qaadanay aad rabteen aad naa kala keentaan warqad ordaysa oo booliska ka timi ayaa guriga iigu soo dhacday warqadii markay ii soo dhacday markaa inanka dumaashigay waa nin isagoo yar wadanka soo galay sharci yaqaana luqadda si fiican u yaqaana turjumaannimo ku shaqaysta wuxuu yidhi waxan waxa weyn maaha ha warwarin ha ka warwarin booliska waan u tegaynaa wax dembiyo weyn maad samayn oo lagugu heli karayo la odhanay waxaasay samaysa dembi walaashayba markaa waxay garaacday nin shiikhoo magaalada joogay arrinkii baa uga sheekaysay wuxuu yidhi acuudu billahi waxaa sidaa samaynaya ninka waxaa alaabta ka daba tegaya miyaanu soomaali ahayn maanay dad muslin ahayn markaasuu yidhi tirmaya waa muslim weliba waa soomaali waa keeyo waa loo sheegay wuxuu yidhi waxaan baan aqaanaaba ninay wax isku yihiin oo u kaadi ninkaasaan garaacaya shiikhii baa ninkii garaacay ninkii baa soo hadlay wuxuu yidhi waxaasu waa saqajaan aniga la hadlayo waxaanaa dhammaynayo waxaa dhacday booliskii baa layga yeedhay iska cancel baa lagu yiri gabadha ka cancel booliska muu cancelin booliskii baa layga yeedhay booliskii markaan u tagay waxaan ninkan waan isqabnay ninkaygii buu ahaa uurkan aan caloosha ku siday isagaan u leeyahay alaabtana waanu isla iibsanay isna badh buu soo iibiyey anna badh baan soo iibiyey waxay igu yidhaahdeen de mar haddii aad isqabteen dad isqabay oo alaabtoodii kala qaatay baa tiino wax weyn bay imay weydiino booliskii sidii baan kaga soo baxay waa gartay booliskii hadda kuu heliyey alaabtii baan iibinay soomaalidii wadanka deganeed baa iga iibsatay de alaab cusubna oo ahayd fadhigii qolaa la kacday tankiyo ammaansan thank you intiina subscribe saartay thank you guys fadhigii qolaa la kacday hurdadii qolaa la kacday tvgii wixii oo dhan waa layga wada iibsaday alaabtaa la soo xaday ma iibsan leediin yaa iibsan la alaabtaa la soo xaday yaa ku soco ma alaabtaad ku seexateen xitaa ragoo ka xishoon maysa ilaahay amarkiisa ku dhacday wadaba ordaysaa deedna waxaa dhacday halkaa markay marayso ayaa waxaan tegey dowladdii u taga waxaan ku uri waxaan rabaa inaad meel geysaan magangelyo mar labaad codsaday waxaa la geeyey meel santara baa la geeyey inan baa layla dejiyey meel la wada degan yahay oo meelaha sooshalka dadku wadaagaan inan baa layla dejiyey meeshii anigoo degan ayaa waxaa ii soo dhacday inuu dacwaddii soo kansalay dacwaddaadii haa tii uu sharciga igu qaaday inuu kansalay waa gartaa maxkamaddii baa mar saddexaad ii soo dirtay negative maadaama isaguna uu kansalay meeshii baa laga saaray markaa waddanka haddii negative lagu siiyo waa inaad adigu isdabirto hoyna kuma siinayaan wax kalena kuma siinayaan meeshii baan ka yimi haddana meel kalan wax ka dalbaday inantii walaashay baa ila dadaalaysay ugu dambeyntii waxa lay siiyey qol yar ayaa lay siiyey weli negative aan haystaa waxaan tegey markaa meesha yareed markii lay siiyey qolka yareed waraaqo aan cuntada ku iibsanayana lay siiyey oo noloshaydii aan halkii iska wato ilmihii uu soo weynaaday oon xaamilo ahay ayaan maalintii dambe dhakhtarkii tegey waqtigii aan umulayay waqtigaan umulayay markaa stresskii badnaa dhibaatadii badnayd problemkii markasta aan dhexda kaga jiray adigu ilmihii biraa lagu soo saaray aniga dhaawac bay gaadhay ilmihiira dhaawac baa gaadhay garab baa kala baxay xidid baa ka go-ay garab maskaxdoo kale waxaa la yidhi dhaawac baa ka gaadhay ilmo yara kooma ku jira ayaa dhashay subxaan allah ma imanaysaa faadima mid afraad ba guursanaysaa mise hadda afri lahayd baatala kii saddexaad subxaan allah ilmihiira waa lala orday
waxaa lala tegay ambalaas baa lagu qaaday dhakhtar kalaa la geeyey way ii yimaadeen waxay igu yidhaahdeen dhakhtar baa yimi wuxuu yidhi ilmahaaga dhaawac baa soo gaadhay koomuu ku jiraa xaaladiisu way culus tahay dawo noocaasa in lagu tijaabiyo ogolow ilaahay baan tala saarta waxaan idhi may ma ogolaanaya in lagu tijaabiyo sidii ilaahay ka dhigaa ayuu noqonayaa ilaahay baan gacmaha u taagan waxaan adaa i siiyey ilaahay haddaad ugu tala gasho inuu noolaado ilmo wax lagu tijaabiye mahaye ii badbaadi hoomadii uu ka soo baxay isagii markaa muu soo raadin nalamuu soo hadal ilmaha kuu dhashay ilmahaagii wuu xanuunsanayaa eedadiisaa u sheegtay nagama soo dul wareegin marka loo sheego wuxuu leeyahay way balogaraysay de way balogaraysay xagaan iyaduba ilamay soo hadleen iyaduma iisoo sheegto anigii qaliin baan dib u galay 4 saacadood ayaan qaliin ku jiray oo dhaawac bay soo gaadhay waxaa dhacday maalintii dambe islaantii la soo hadasho waxay igu tiri dhakhtarka aad ku jirto awgiis xaaladda aad ku jirto ilaahay dartii u cafi lana hadal message u qor u sheeg meeshaad joogtaan iyo ilmihiisu suu yahay message-kii baan u qoray uu yimi ilmihiisaas uu dul istaagay uu iska baxay ilmihii markuu dhakhtarkii koomadii ka soo baxay madaxiisii la yidhi maskaxdiisu waa okay baa la yidhi haddaba gacan baa jirta aanu ka qaadi karayno xidid baa go-ay gacantii baa lasoo rakibay gurigii yaraa baa nala keenay maalin kasta bisii 3 jeer baan dhakhtar tegi jiray oo ilmaha yar dhakhtarka ilmaha yar aan kasoo noqonayo aan geynayo isagu ilmaha kuu dhashay walaa reerkiis walaa gabadhii lahayd guriga ka soo bax walaa ninkii walaa hooyadiisii wadankii joogtay cidiba ma tiraahdo ilmaha noo dhashay ilmihiisuu yahay ina yar buu ilaahay siiyey gabadhaa sheekada ii soo dhiibtay way ina daawanaysaa idinkaa weheliya abay tiri habeenii maalin waad daawadaa waxyaabo badan baad iilowsiiseen dhibaatooyin badan aan soo malaad iilowsiiseen waxay idinka codsanaysaa haddaba duco waxaan sheekadaasoo dhan usoo gudbiyey bay tiri maadaama aad dad wanaagsan tihiin inaad iisoo ducaysaan inuu ilaahay horta sharciga soo siiyo 7 sano aan wadanka jooga markastana negative aa laysiiya si niyada u duceeya ilmahan yarna inuu ilaahay igu asturo ii caafiyo ila koriyo markaa hal mar aan faatixada u marno gabadhaa walaasheena inuu ilaahay sharci uga soo qaado gaaladaa ila joogto inuu ilaahay u khasbo burhka ugu dhufto u soo sakhiro insha allah bishan dhexdeeda ay